وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سو dhawaada dhammaan akhyaarta waxaynu channelkan Extra Option Somali insha Allah halkan waxaan kaga hadli doonaa website-kii labaad oo scam noqday waxaa jirtay process hore oo aan ka hadlay oo nidhi maartay website-yada aynu investment ka samaysanay waxaa khasaba inuu website walba la hadalno gaarkiisa oo la hadalno detailskiisa iyo xogihiisana sii ogaano website-kaasna damaanad aynu ka helno waxaa jirtay laba website oo aan la hadlay mid walbaaba uu damaanad siiyey laakiin website-kan aan caawa dul taaganahay iyo website-kan xalay ka hadlay fadlan haddaan video ka hor iyo soo daawo website-kan xalay aan ka hadlay ee Abdoj oo aan sheegay inuu scam noqday maadaama uu buuxin waayay shuruudaheennii damaanad uu ina siin waayey waxaa ku xigi doona website-kan oo isaguna inoo damaanad qaadi waayey sheegina waayey cilada ka timaada payment password-ka website-kan anigoo og passwordkayga inuu passwordka saxan u yahay oo paymentigayga u yahay haddana waxay sameeyeen qaab roon ah bay iga dhigeen oo way ii khaldeen waxayna igu leeyihiin adigaa ilaawi laakiin anigu ma ilaawine waa qaabay scammers u shaqaystaan oo dadka maartay website-yada fake ah ee samaysta oo dadka dhaca ay u samaystaan ama waa trick ay ku shaqaystaan dunida markaa social media joogtid oo social media ka shaqaysanaysid waxyaalo badan baa arkaysaa waxyaalo badan baa la kulmaysaa tan waynu aragnay oo maartay way ka dhacdaa suuqa dhexdiisa laakiin iyagu waxay isleeyihiin la idima fahmiyo laakiin toos baa loo fahmiyaa sababta ama macnaha ay ugala jeedaan payment passwordkaaga adiga ilaawe adigoo payment passwordkaaga saxan yahay wax walbana ay ku saxan yihiin ruleskaga iyo nidaamkaaguna ay ku diyaarsan yihiin bay iyagu ku oranayaan waxba kaa khaldan marka website-kan markii run ahaantii eegno wax weyn ayuu maartay ka khaldan uuna kala mid yahay website-yada scammerska website-yada scammerskana qaabab badan bay u shaqaystaan sida kii xalay oo kale Abdoj oo processing lacag ka gelinaya kan oo hadda maartay aan dul taaganahay oo payment passwordkaaga intii laga bedelo iyagu ay bedelaan bay korneen adaa ilaawi marka qaabab badan bay scammers u shaqaystaan hadda waxaa in tusayaa website-kan ay hadda dul taaganahay available balance-gaygu waa $21 lacagta ugu yar ee lala bixi karana waa $10 marka iminka already waxaan haysanaa lacagtii lala bixi karayay maximumkii lacag ka badan laba shibaar okay waxaan imaan doonaa meesha ay ku qoran tahay withdrawal marka ay nimaadno website-kan hadda ka hor baan lacag kala baxnay oo waa idin tusay laakiin waa soo dhaweynta scammers kala dhaha okay markii hadda withdrawal ku dhufano kadib waxaan ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay waxaan gelin doonaa amountgeena marka waxaan iman doonaa all waxa inagu jiro waan diri doonaa payment passwordkeena waa kan hortiina ku gelinaya payment passwordkayga haddaan gelinayaa okay ila fiirsada payment passwordkayga waa kan markaan payment passwordkayga saan u geliyo kadib waxaan ku dhufan doonaa meesha ay ku qoran tahay submit markaan ku dhufto waxaa arki doontaa halka inay igu soo qorayaan wrong password so wrong transaction password igu soo qorayaan smart wrong transaction password wax ka jira ma jiraan waa scam weeye website-kani inta badanna maartay dadka scammerska waxay ku dhaqmaan tiriyo fara badan ama strategiya fara badan oo ay dadka rabaan inay ku dhacaan laakiin waxaan oo lala socdaa waa la ogyahay wax kastaaba maartay website-yada waxaa jira rules iyo nidaamka buuxinaya website-yada inagu markii hore ay soo gelinay website-yada rules iyo nidaamka buuxiyey weeye laakiin aniga haddana waxaan dib ka go'aansaday bal inaan website-yadan damaanad ka qaato waa la hadlay waa u sheegay inaan youtube-kayga kaga sheekeeyey waa u sheegay inaan maartay dhalinyaro aniga igu xirna ay isticmaaleen linkigayga aan sheergareeyey tiimkaygan aan u sheergareeyey oon iyaga kala sheergaraystay waxaan iyaga kala hadlay maadaama oon qof youtuber ahay wax aan soo gudbinayo dad igu xiran yihiin in dadkaasi waxooda hantidooda meesha ay gelinayaan inay safety ahaado 4 website baan kasoo hadlay sidaad wada ogtihiinba oo youtube-kana dhex yaalla 4 website 2 ka mid a waxay isiiyeen damaanad laakiin website-yada kale ee Abdoj iyo kanaan caawa dul taaganahayba wax damaanad ilaa xilligaa imaysiin weliba website-kana hadda aan kor taaganahay isaga maartay waxaa jirta dhalinyaro badan oo ii soo diray ID-yada idii sheegayay oo ID-gan halkan ku jiray meesha aan hadda idin calaamadinayo ID-gaas dhalinyaro badan oo ila soo wadaagtay baa jiray oo maartay aan u diray xogtooda oo la wadaagay oon ku yidhi
dad baad khasaare geliseen, aniga baad khasaare geliseen. Waxaan u baahanahay inaad dadkaana dee waxooda celisaan, payment passwordkoodana u saxdaan. Dee wax kasta waan kala hadlay, laakiin website-kani maaragtay wax rules iyo wax nidaam ma laha. Iyagii baa ku leh, adigii baa iska ilaaway. Marka qaabab badan iyo tricks badan oo dadka hackerska ku shaqeystaan baa jira. Insha Allah waxaan rajeynayaa website-kan inaad isagana iska ilaalin doontaan. USDT, OTZ lacagtan haddaad aragtaan ama website-kani waa fake already. Insha Allah waxaan rajeynayaa website-yo kale oo waxaa jira dhalinyaro badan ay dhaheen iyo isagana noo soo ogow inay scam yahay. Insha Allah waxaan rajeynayaa website-ka inta badan waxaa fiican xataa haddii website-kaasi 90% uu kula noqdo inuu website-kaas website real yahay, inaad damaanad ka soo qaadato telegramkooda kala hadasho, inaad damaanad ka qaadato. Marka insha Allah anigu wixii damaanad leh oo idinla wadaagayaa. Labada website ee damaanadda isiiyena insha Allah iyaga iyo cadeyntooda iyo damaanadda isiiyeen iyo wax walba insha Allah xaggana soo dhigi doonaa. fadlan hada channel ku cusub subscribe, like and share and comment. wixii su'aal insha Allah comment igu weydii. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.